Arayii hore dekada magaalada Muqdisho Axmed Cabdilaahi Samow ahna siyaasi madax bannaan oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaal ku marayay wadamada qaaradda Yurub ayaa Saab TV oo waraysi siiyay ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya doorashooyinka lagu wado inay Soomaaliya ka dhacaan sanadka 2021 iyo xidhiidhka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay waxaana uu tilmaamay inay Soomaaliya marxalado adag oo kala duwan ka soo gudubtay safarkayga muddadii ugu dambeysay 3 bilood ugu dambeysay safar badan oo aan ku tagay dalal dhowr ah Carabta iyo Asia, Afrika iyo Yurub waxaan mar walba la kulmayay hal doorka Soomaaliyeed ee shakhsi walba ee u damqanaya ummadda Soomaaliyeed kuwa dhimanaya kuwa dhibaatada loo geysanaya ee dhibaatada dhagar qabaha uu geysanayo ku dhimanayo waa dhalinyaro bacdama saameynta dhibaatada Soomaaliyeed waxa ugu badan ay ku dhacaysa dhalinyaro ay tahay dalkana ay tahay iyaga inay u istaagaan ayaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba iyo adduunka meel walba ka joogan waxaan si hoose ugala hadlaayay ama ugala sheekaysanayay seen dhalinyarada Soomaaliyeed ku badbaadinaa seen ku badbaadinaa sharafka iyo karaamadii Soomaaliyeed sida la socoto Soomaaliya waxay soo martay maraaxil adag ee kala duwan waqti waxaan ahayn dawladdeennii Soomaaliyeed inay ku soo shaqeyn jirtay gobolka kamida Soomaaliya sida Jowhar iyo Baydhabo waa dawladdii oo madaxweynaha Cabdulaahi Yuusuf Axmed marxaladda maanta aan marayno iyo marxaladda maalinta aan maraynay inta u dhaxaysay maalin walba waxaan ka gudbaynay gidaar adag way jiri karaan dhaliilo way jiri karaan dulduleelo way yeelan kartaa xukuumad walba iyo dawlad walbaba inay ka gaabiso waxyaabo badan oo mujtamaca muhiim u ahaa laakiin waxaa lagu xalinayaa qofka siyaasiga ah laga rabaa inuu ku xaliyo aragti fog oo dalka lagu badbaadinayo siyaasi Samow oo hadalkiisa si wato ayaa dawladda dhexe u soo jeediyay inay wada shaqayn wanaagsan la samayso maamul goboleedyada dalka waxa u baahan marka in la balance gareeyo sharafka dawladna in la ilaaliyo baahida deegaanka ka jirtana in la dhowro taasna waxa suurtagelin kara hoggaanka siyaasadeed ee dalka talada maanta gacanta ku haya inaysan u muujin dawlad goboleedkaas inuusan baahi u qabin in dawladdiisa uu ka cararo in dawladdiisa uu u arko tii dhibaysay tii burburinaysay tii u diidaysay in nidaam uu ka dhismo dawladda waxaa laga rabaa siyaasad xasiloon ee waaqic ku salaysan Soomaaliya maanta waa Soomaaliya la isku keenayo oo nabar boog leh oo laga ilaalinayo inuu damqado oo kala waay waxaa laga rabaa marka bacdama wixii ay yihiin wax la ilaalinayo oo la isku kabkabayo inaana loola macaamilin dad qarniyo dawladooda ay dhisneedo kale waxaan u baahannahay madaxweyne ra'iisul wasaare aqliga iyo maskaxda ka socda ee fahma hadii tilaabtan qaado maamul goboleedkan hadii tilaabta uu fahmi waayo waxa uu la jeedo uu ka cararo intuu ku dhici doona ceelkaas uu ku dhacaayana hadhow ma laga soo celin karo waxaan rabaa marka siyaasad midaysan ee maslaxadda ummadda ay ku jirto inay la yimaadaan dawladda dhexe maamul goboleedyadana inay ogaadaan siyaasadda Soomaaliya amniga Soomaaliya mas'uuliyadda ugu badan dawladda federaalka ay saaran tahay xurmo badan dawladda in loo muujiyo gabagabadii waxa uu iftiimiyay inaanay Soomaaliya suurtagal ka ahayn doorasho hal qof iyo cod ah taasi oo ku sababeeyay wada shaqayn la'aanta maamulada iyo dawladda dhexe federaalka iyo xaaladaha amniga ka jira dalka ma aaminsani inay gaarsiin karaan maxaa yeelay ma muuqato ififaalaheeda waxa kala taagan oo culays uu ka jira nidaamkii maamul goboleedyada fahankeeda waxa dhibaato uu ka jira isqabsi jeclaysi siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada taasoo mar walba keenaysa khilaaf dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada amnigii dalka ee suuragelin lahaa wax walba number 1 oo ahaan lahaa inay dhacaan ayaan wali sidii la rabay ahayn sida darteed suuragal ma noqonayso doorasho qof iyo cod Zakariya Jeelani Saab TV wararka dalka Jarmalka